السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. Mowduucan qaybtiisii hore waxaan ku soo qaadanay qodobo muhiim ah oo ardayga jaamacadda ku cusub ka saacidaya la qabsiga iyo inuu ku raaxaysto jaamacadda sanadka koowaad. Si la mid ah qaybtan oo ah qaybtii ugu dambeysay, waxaan ku qaadan doonaa qodobo iyagana muhiim u ah ardayda sanadkan jaamacadda bilowday. Waxaana ka mid ah sida loo akhriyo buugaagta casharrada, sida loo diyaariyo assignmentska, iyo sida loo diyaariyo presentationska loona soo jeediyo. Ee ku soo dhawaada mowduuca. soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. qaabka wax akhrinta oo leh noocyo fara badan oo ay aqoon-yahanadu sifeeyeen ayaa waxaan ka soo qaadanaynaa midka ugu macquulsan aniga oo ku soo koobi doona qodobadan. Si joogto ah u akhri cashar walba ka hor macalinka ama xilliga casharka la qaadanayo. Akhrintan waxay kaa caawinaysaa inaad fahamtid ujeedada iyo qaab dhismeedka casharka. U qaybi casharka dhowr qaybood haddii uu badan yahay. qaybintan waxay kugu saacideynaysaa inaadan ka niyad jabin akhrinta casharka. jadwal gaar ah u samee xilliga wax akhrinta. goobta wax akhrintana ka dhig goob aysan wax kale ku mashquulinayn, iftiin fiicanna leh. xilliga wax akhrinta u samee xilli nasiino si aad jimicsi iyo laga baxsi u soo samaysid si maskaxda iyadoo fresh ah ay wax akhrinta dib ugu soo laabato. U bedel su'aalo ciwaanadu uu cashirku ka kooban yahay, sida faa'iidada waxbarashada. U bedel waa maxay faa'iidada waxbarashada? yacni ciwaanada ka samee su'aalo. bilow akhrinta casharka oo dhammaystiran adiga oo hoosta ka xariiqaya qoraal walba oo nuxur leh ama jawaab u noqon kara su'aalihii aad ka diyaarisay ciwaanada buugga. dib u milicso casharkii aad soo akhrisay soona calaamadisay si uu u dego maskaxdaada oo aadan u hilmaamin. diyaargarowgu waa furaha guusha xilliga waxbarashada, sida xilliga diyaarinta assignmentska. waxaan idinla wadaagi doonaa sida ugu habboon ee la raaco marka la qorayo assignmentska. marka ay tahay sanadka ay kugu horeysay ee jaamacadda, assignmentsku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha kugu cusub. waana baaritaan uu macallinku u diro ardayda isaga oo u diraya ciwaan ka mid ah ciwaanada maadada. muhiimadiisuna waxay tahay in lagu ogaado fahamka ardayda ee maadadaas. si aad u diyaariso assignment qurux badan, raac tallaabooyinkan. si kooban u qor qodobada ugu muhiimsan ee uu ka hadlayo assignmentiga, maxaa yeelay taasi waxay kaa caawinaysaa inaadan ka tagin muhiimadii aad ka hadlaysay ee uu ku saabsanaa assignmentiga. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inay kuu fududaato raadinta qodobadaas. hordhac kooban oo qurux badan u samee qoraalkaaga adiga oo si kooban u sharaxaya qodobada ugu muhiimsan ee qoraalkaaga, maxaa yeelay hordhaca assignmentigu waa meesha laga eegayo nuxurka iyo quruxda assignmentiga. isticmaal tusaalooyin kala duwan oo sharaxaya nuxurka assignmentigaaga. ugu dambeyn, assignmentigaaga waxaad u samaysaa gunaanad soo koobaya nuxurka assignmentiga. presentation marka la micneeyo waa soo jeedin in koox dad ah aad mowduuc aad soo diyaarisay u soo jeediso. ardayda ku cusub jaamacadda, presentationka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ku cusub oo aysan ku soo arkin waxbarashadoodii hore. inta badan jaamacadaha, presentationku waxay ardayda soo jeediyaan dhammaadka semesterka, markaas oo uu macalinka maadada dhigo uu u diro ardayda qayb ka mid ah cutubyada buugga manhajka si ay iyaga u soo jeediyaan. si uu u noqdo presentationkaaga mid si fiican loo dhageysto dadkuna ay ka faa'iidaan, raac qodobadan. inta aadan diyaarin presentationka, ogow dadka ku dhageysan doona inay yihiin dad kula aqoon ah amaba ka aqoon iyo garaad sareeya. adiga oo taasi og, diyaari presentationka adiga oo kaashan kara buugga manhajka jaamacadda ama internetka. sidoo kale u samee presentationkaaga hordhac, duluc iyo gunaanad. hordhaca presentationkaaga si kooban uga hadal ujeedada presentationka adiga oo qoraalkaaga ka dhigaya qodobo kooban. dulucda presentationkana uga hadal nuxurka mowduuca adiga oo aan sidoo kale qoraal badan qorin. waxaad ku dari kartaa sawirro iyo shax si fiican loo soo qurxiyey. gunaanadkana soo koob wixii aad dulucda uga hadashay adiga oo raacin kara tixraac haddii aad awooddo. maalinta aad soo jeedinaysa presentationka, si qurux badan u soo labiso adiga oo dhoola caddayn iyo farxad la soo hor istaagaya fasalka. haddii aad dareento inuu fasalku uga caajisay ama hadalkaaga la fahmi la'yahay, weydii ardayda su'aal fudud si caajiska uu meesha uga baxo, dareenkoodana aad u kasbatid. gabagabadii, u oggolow fasalka ciddii su'aal qabta inay ku weydiiso, si deganna uga jawaab haddii ay tahay su'aasha mid qusaysa mowduuca. haddiise ay ka baxsan tahay mowduuca, ku qanci ardayga saaxiibkaaga ah in aysan su'aashaas mowduuca ku saabsanayn. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mowduuceena maanta. haddii aad ka faa'iido mowduuca, waa ujeedadii aan ka lahaa. haddii aadan ka faa'iidinna waxaan kaa raaligelinaa waqtigaaga. inta aan kulmi doono mowduuceena xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.